sidoo kale walaalayaal waxaa ka mid ah qaababkii nebigu sala allahu calayhi wasallam uu la dhaqmayay haweenkiisa marka ay dhiigga caadada ku jiraan ama waxa weeyaan xaydku uu ka soconayo in aanu ka fogaanayn nebigu sala allahu calayhi wasallam bal uu u soo dhowaanayey sida xadiidka ummi salama ay tilmaamayso waxay leedahay nebiga sala allahu calayhi wasallam iyo aniga oo wada hurudna oo gogol ku wada jiifna ayaa dhiiggii xaydku iga yimi oo igu bilaabmay markaasaan siibtay oo gogoshii intaan ka siibtay ayaan baxay maryahaygiina waan qaatay aan iskaga tiri lahaa dhiigga xaydka dabeetana nebigu intuu dareemay ayuu la hadlo wuxuu ku yidhi miyaad xayday oo dhiiggii caadada kaa yimi markaasaa waxay tidhi haa nebigu intuu u yeedhay ayuu yidhi soo jiibso halkii bay haddana ka bilowday inay jiibsato oo gogashii ay ku noqoto taasi waxay ku tusinaysaa nebigu qaabkii ula dhaqmayay dumarkiisu markay caadada ay ku jiraan sidoo kale waxay leedahay maymuuna nebigu sala allahu calayhi wasallam gurigayga aniga oo jooga ayuu ila jiibsaday aniga oo waxa weeyaan dhiiggii caadada ama xaydka ku sugan waxaa laga yaabaa ragga qaarkood dumarkooda marka ay daahirka yihiin ama dhiigga caadadu aanu ka socon inay la jiibsanayaan oo sariirta ay ku soo dhowaynayaan oo ay soo dhowaysanayaan maalinkaa dhiigga xaydku uu ku bilaabmana ay ka cararayaan ama ay ka fogaanayaan ama aanay la fadhiisanayn meel aanay la jiibsanaynin taasina waa midaan waxa weeyaan loo baahnayn walaalayaal sidoo kale habdhaqankii nebigu uu kula dhaqmeeyey dumarkiisa waxaa ka mid ah inuu meel uu kula maydhanayey goob nebiga iyo xaasaskiisu inay ku wada maydhanayeen sida xadiidu caaisha uu tilmaamayo waxay leedahay aniga iyo rasuulka alle ayaa waxaannu biyaha ka wada darsanaynay weel keliya labadayaduba annaga oo maydhanayna markaasaa rasuulku wuxuu odhanayay iiddaa anigu aan darsadee markaasaa caaishana waxay leedahay maya aniga iiddaa rasuulkii allo aan darsaday sidoo kale cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu tilmaamayaa nebiga iyo maymuuna inay waxa weeyaan weel keliya ay biyaha ka wada darsanayeen oo ay ka wada maydhanayeen sidoo kale ummi salama iyaduna waxay leedahay aniga iyo nebigu waxa weeyaan annagoo jinaabada ka maydhanayna ayaannu biyaha ka wada darsanayna weel keliya oo aannu halkaas ku wada maydhanay sidoo kale walaalayaal waxaa ka mid ah qaabkii nebigu uu la dhaqmeeyey haweenkiisa inuu mararka qaarkood martiqaadka loo fidiyo uu u kaxaysanayey sida xadiidu anas ibnu maalik uu tilmaamayo wuxuu leeyahay nebiga waxaa u yimi nin farisiya ayaa u yimi ninkaasi wuxuu ahaa nin aad u maraq macaan oo maraqa uu sameeyaa uu aad u macaan yahay nebiguu maraq u sameeyey markaasuu nebiga u yimi si uu u kaxeeyo maraqa uu u soo siiyo dabeetana nebiga markuu arrintii u sheegay ee uu ku yidhi ina mari iyadoo caaisha ay la joogto ayaa nebigu wuxuu karaahiyaystay ama uu diiday inuu caaisho ka tago markaasaa wuxuu ku yidhi wahaadihi middanna aanu israacno dabeeta ninkii wuxuu yidhi maya dabeetana nebigu wuxuu yidhi maya aniguna wuu ku celiyo wuxuu yidhi ina mari dabeetana wuxuu yidhi may raacaysaa ninkii wuxuu yidhi maya nebigu wuxuu yidhi aniguna tegi maayo mar saddexaadkii ayuu ninkii yeelay inuu nebigu uu caaisho kaxaysto dabeetana sidii bay isku raaceen oo ay ku soo wada cuneen cuntadii ninkaasi uu u diyaariyey qaabkii nebigu sala allahu calayhi wasallam uu la dhaqmayey walaalayaal waxaa ka mid ah haweenkiisa inuu mararka qaarkood uu la baratamayey oo baratan uu la samaynayey sida xadiidku caaisha uu tilmaamayo ghasawaadkii ama duulaannadii nebigu uu baxay mid ka mid ah iyadoo waxa weeyaan la soconayo ayuu nebigu ciidankii intuu la hadlay buu ku yidhi horu maroo sii socda dabeetana way socdeenoo way dhaafeen caaisha iyo nebigaa isku keliyaystay markaasaa nebigu wuxuu yidhi ina mari baratanne way ordeen caaisha waxay ahayd gabadh nis yar oo da'yar nebigay ka dheeraysay dabeetana nebigu waa iska aamusay duullaan kale ayaa haddana sidii si la mid ah uu nebigu ciidankii ku yidhi sii socdo way baratameen markii la baratamay ayuu nebigu dheereeyey muddaa ka soo wareegtay caaisha way cuslaatay hilib baa fuulay nebigaa ka dheereeyey markaasaa nebigu intuu qoslay baa wuxuu yidhi isu tuur labadan isu tuur dheerayntii markii hore aad iga dheeraysay iyo tanaan waxa weeyaan kaa dheereeyey maanta labadaas isu tuur bimacnaa waynu kala joognaa sidoo kale walaalayaal waxaa ka mid ah qaabdhaqankii nebigu sala allahu calayhi wasallam uu ula dhaqmeeyey haweenkiisa ama xaasaskiisa in markay meel ugu yimaadaan ee ama xaajo ay uga baahan yihiin ama dan ay uga baahan yihiin xataa isagoo muctakif oo masaajidka ku ictikaafsan markay hawshaa kala dhammaystaan ee ay rabaan inay laabtaan oo guryihii ay ku laabtaan
nebigu keligood ma dirayne wuu sii dhowaynayey oo waxa weeyaan wuu sii sabootinayey ama waa sii kaxaynayey sida safiya ay tilmaamayso nebigaan u imi masaajidka ugu imi isagoo muctakif oo ictikaafsan hadalkii markuu noo dhammaaday ayuu nebigu sala allahu calayhi wasallam i kaxeeyey oo xaggii guriga uu waxa weeyaan iqabadsiiyey sidoo kale waxaa ka mid ah qaabkii nebigu uula dhaqmayey xaasaskiisa inuu dareenkooda ilaalinayey iyo mashaacirtooda xadiidu caaisha wuxuu tilmaamayaa maalin maalmaha ka mida nebigu inuu caaisho ku yidhi caaishay waan garanayaa marka aad ii cadhaysan tahay iyo marka aanad ii cadhaysnayn caaisha waxay tihi rasuulka allow maxaad ku kala garanaysaa wuxuu yidhi nebigu markaad ii cadhaysan tahay waxaad tidhaahaa wa rabbi ibraahiim nebi ibraahiim rabbigiisaan ku dhaaranaya marka aanad ii cadhaysnaynna waxaad tidhaahaa muxamed rabbigiisaan ku dhaaranaya dabeetana caaisha intay qososhay ayaa waxay tidhi haa rasuulkii allow waa sida aad u sheegtay warku waxa uun aan ka haajiri karaa waa magacaaga weeyaan ee si kale waxa weeyaan kaaga haajiri maayo waxaa ka mida walaalayaal habdhaqankii nebigu sala allahu calayhi wasallam uu kula dhaqmayey haweenkiisa ama xaasaskiisa inuu xaqooda u ilaalinayey wanaaggii ay u galeen uu ka warhayey aanu ka ilaaweynin ayaa ka mida waxaana ku tusinaya xadiidu caaisha nebigu sala allahu calayhi wasallam khadiija aad buu u hadal hayn jiray aad baanu magaceeda u sheegi jiray caaisha markaa waxay leedahay khadiijo saan uga masayray weligay gabadh waxa weeyaan kale ugama masayrin sababtuna waxay tahay nebigu sala allahu calayh wasallam magaceeduu sheegi jiray oo aad buu magaceeda ugu soo celcelin jiray waxay dhacaysay bay leedahay in mararka qaarkood nebigu inta waxa weeyaan gurigiisa lagu qalo neef lagu qalo dabeetana uu odhanayey u dira khadiijo saaxiibbadeed hilibka wax uga geey heblaayo u geeya hilibka waayo khadiijay jeclay heblaayo hilibka wax uga geeya waayo waxa weeyaan khadiija ayay saaxiibba ahaayeen dabeetana caaisha waxay leedahay iyadoo nebiga la hadlaysa waxaad mooddaa adduunkaba inaanay gabadh kale aanay dul saarnayn oo gabadh kale aanay waxa weeyaan jirin markaasaa nebigu sala allahu calayh wasallam wuxuu leeyahay innahaa kaanat wa kaana lii minha walad khadiiji sidaasay ahayd oo sidaasay ahayd oo sidan bay ii samaysay carruurna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa iga siiyey waxaa ku tusinaya walaalayaal sidoo kale caaisha waxay leedahay maalin maalmaha ka mid ah nebiga sala allahu calayhi wasallam oo guriga jooga ayaa waxaa gurigii soo garaacday haala binti quwaylid oo khadiijo ay walaala ahaayeen dabeetana nebigu hadalkeedii ayuu wuxuu ku xasuustay hadalkii khadiija markaasaa wuxuu yidhi allaahumma haala allaahumma haala allow waa haala dabeetana caaisha ayaa dareentay arrinkii markaasaa intay hinaastay ayaa waxay tidhi maxaad ka sheegaysaa gabadh aad u da'weynayd oo dumarkii quraysheed ka mid ahayd oo ilkuhu ka daateen oo waxa weeyaan xilli hore dhimatay oo mid ka khayr badan ilaahay kuugu beddelay maxaad ka hadal haysaa markaasaa nebigu sala allahu calayh wasallam wuxuu yidhi ilaahay iguma beddelin wax ka khayr badan khadiija sababtoo ah markii dadku igu kufriyeen ayay i aamintay markii dadku i beeniyeen ayay i rumaysay maalkeediiyo xoolaheedii bay igu garab istaagtay oo igu garab gashay carruurna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa iga siiyey markaasaa caaisha waxay leedahay maanta wixii ka dambeeya khadiijo xumaan ku sheegi maayo sidoo kale waxaa ku tusinaya maalin maalmaha ka mida nebiga waxa weeyaan gabadh baa u timi iyadoo caaisha ay la joogto markaasaa nebigu sala allahu calayh wasallam aad u soo dhoweeyey oo wejigii uu u furay oo uu xog waraystay markaasaa caaisha waxay tidhi islaantan da'daa ilaa sidan maxaad waxa weeyaan ugu qaabilaysaa qaabkan maxaad ugu soo dhowaysay markaasaa nebigu sala allahu calayh wasallam wuxuu yidhi waxay noo iman jirtay oo ayna soo booqan jirtay khadiija wakhtigii ay noolayd waxaa ka mida walaalayaal habdhaqankii nebigu sala allahu calayh wasallam dumarkiisa uu kula dhaqmayey marka ay xanuustaan nebigu sala allahu calayh wasallam waa soo dul fadhiisanayey iyagoo jiifa markaasuu waxa weeyaan ruqiyada iyo adkaarta uu ku tufay markaasaa wuxuu odhanayey allaahumma rabbi annaas idhab ilba's washfi anta shaafi laa shifaa'a ilaa shifaa'uk sida xadiidku uu tilmaamaya waxaa ka mida walaalayaal habdhaqankii nebigu sala allahu calayh wasallam dumarkiisa uu kula dhaqmayey inuu ka caawinayey hawsha guriga taalla iyo shaqada guriga laga qabanayo caaisha ayaa waxaa la weydiiyey maa kaana nebiyu sala allahu calayh wasallam yasnacu fii beyti nebigu muxuu gurigiisa ka qaban jiray markaasaa waxay leedahay caaisha
wuxuu waxa weeyaan karan jiray maradiisa dilaacday ayuu tolan jiray oo karan jiray kabtiisa meeshay ka jabto ayuu waxa weeyaan ka tolan jiray wuxuu soo lisan jiray neefkiisa adhiga ayuu soo lisan jiray wuxuu nagala qayb qaadan jiray waxa weeyaan guriga iyo hawsha taalla sida ay cabirtay kaana fii mihnati ahlihi guriga markaa inaad hawsha taalla aad ka qayb qaadato waa cizi iyo sharaf iyo waxa weeyaan ragannimo ayay walaalayaal ay ku tusinaysaa nebigeenna sala allahu alayh wasalam oo afdalu bashar ah ayaa qaabkaas u caawinayey dumarkiisii waxaa ka mida walaalayaal qaab dhaqankii nebigu sala allahu alayh wasalam uu kula dhaqmayay dumarkiisa inuu isu qurxinayey oo waxa weeyaan uu isu carfinayey caaisha radia allahu canha baa waxaa la weydiiyey nebigu markuu guriga sidaa u soo galo muxuu ku bilaabayey oo uu qabanayey markaasaa waxay leedahay cadayga ayuu ku bilaabayey sida xadiidka kale uu tilmaamayo min xadiidi caaisha nebigu aad buu u karaahiyeysanayey ama ay ugu adkayd in afkiisa ay ka soo baxdo raa'ixo aan la jeclaysanaynin oo dadku waxa weeyaan aanay ku qanacsanayn waxaa ku tusinaya arrinkaas walaalayaal nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi adduunyadiinna waxaa layga jeclaysiiyey waxa weeyaan dhowr shay waa dumarka iyo tiibka iyo salaadda oo laga yeelay meesha aan ku ilqabowsado ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam uu tilmaamay marka waxaa loo baahan yahay gabadhaada inaad isu qurxiso u cadayato isu cadriso dharka ugu fiican aad u xidhato sida iyaduba ay waxa weeyaan isugu kaa qurxinayso ee isugu kaa cadrinayso